si halkaasi ugu qanciso seegada Mursal Muuse u wasay fiisulka dalka Mareykanka si ay noo xaqiijiyeen asxaab ka agdhowaa Hodan Cabdiraxmaan. Bil kor ayaan shaacinay inay Hargeysa u soo socoto Hodan Cabdiraxmaan, laakiin dadka badankooda ma jecla runta. dadka badankooda xogaha qarsoon waxay u yaqaaniin warar aan weli la shaacin, laakiin dadka badankooda waxay u maleeyaan xogaha qarsoon inay been yihiin. Hodan Cabdiraxmaan ayaa laga yaabaa inay Hargeysa soo gaarto bishan aan ku guda jirno November 2019. Hodan Cabdiraxmaan ayaa ah xaaska Mursal Muuse, waxayna ka dulqaaday Qadra Saliimo oo Mursal Muuse u haysa ilaa iyo 3 caruur ah. Hodan waxay dumisay qoys qurux badan ee Qadra Saliimo iyo Mursal Muuse. Mursal Muuse ayaa jecelkiisa Qadra ka doortay fiisa been ah ay u ballan qaaday 2 sano ka hor, ilaa iyo haddana aan la keenin. Nafsigu ma soo daaha ayaa la yiray. Mursal Muuse wuxuu nafsi ka galay maama Qadra Saliimo, oo fanaanad aad u akhlaaq wanaagsan uguna sharaf badan fanaaniinta Hargeysa. Qadra Saliimo waxaa laga galay dulmi aad u weyn kaasoo ku qasbay Hargeysa inay ka gurto. Qadra waa hooyo haysta 3 gabdhood oo ka dhalay Mursal Muuse. Dhawaan ninkeeda waxaa ka farmuujisay Hodan Cabdiraxmaan. Muxuman ninka 4 ayaa loo baneeyay, laakiin ayada waxaa lagula kacay fal aad u foolxumo badan. Waxay hore iskaga baxday xidigaha geeska ayagoo aflagaadeynaya dhahaya Mursal uma qalantid iyo waxyaabo ka sii xun. Waxaana sidaas dhahaya fanaaniin ay soo adeegsatay Hodan Cabdiraxmaan ee shilmad yar ee siisay. Qadra Saliimo ayaa aasaastay kooxda xidigaha geeska. Qadra Saliimo ayaa leh magaca xidigaha geeska. Hadda Qadra Saliimo ayaa aasaastay koox cusub ay ku jiraan fanaanada Nadeer Nairoos, Maxamed PK iyo fanaaniin caan ah oo ka tirsan fanaaniinta Hargeysa. Qadra ayaa hore u sheegtay sababtay ugu baxday kooxda inay tahay kooxda cunsuriyiin ku saleysan gurubeysi marka laga reebo 2 shakhsi ee kala ah fanaanka Cabdiraxmaan Oday iyo fanaanada Xamdi Queen oo hore fanka iskaga baxday. Ma aha Hodan Cabdiraxmaan inaan mucaarad ku nahnay, laakiin waxa ay tahay waa in la sheegaa wanaageedana iyo xumaanteeda. Hodan Cabdiraxmaan waa fanaanad ku caan ah heesta afka Soomaaliga, taasoo saldhigeedu yahay magaalada Minneapolis, ariga Mareykanka. Hodan waxay ku dhalatay isla markaana ay ku soo kortay magaalada Boorama, gobolka Awdal ee Somaliland. Sanadihii 2001 ilaa 2002 waxay ka bilowday fanka magaalada Nairobi, dalkaasi Kenya, halkaasi oo xubin ka ahayd kooxda waayaha cusub. Hodan waa fanaanad heeseeda aad loogu dhageysto dhammaan geyiga Soomaalida degto dal iyo dibadba. Hodan waa fanaanad da'yar oo ku soo barbaartay guur fanaaniin ah. Waxaa dhalay 2 fanaan oo magac iyo miig ku lahaa fanaaniinta Soomaaliya. Fanaaniinta ugu waaweynaa fanka Soomaaliya kuwaasoo kala ahaa Aamin Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cismaan Maxabe oo loo yaqaano Cabdiraxmaan Dheere. Hodan waxay fanka Soomaaliyeed ku soo biirtay iyadoo dhameystiran 2002 ee kooxda waayaha cusub ee fankeeda ee ku soo aastay fanaanada Hodan Cabdiraxmaan. Hodan Cabdiraxmaan ayaa sanadkii hore bishii Abriil 2018 timaaday magaalada Hargeysa si ay hadana markaan u raaligelisay lacag yar ee u siiso Mursal Muuse si ay u soo xoojiso jaceylka u qabo Mursal Muuse. Markay timaaday Hargeysa waxay ku qabsatay show aad u weyn. Showgaasi waxay ku soo bandhigtay heese ay ku karbaashayso fanaanada Qadra Saliimo, laakiin fanaanada Qadra Saliimo ayaa hore u soo qaaday hees ay ku leedahay gob baan ahay oo nasab ah. Heestaas ayaa dhagaha ka qabsatay fanaanada Hodan Cabdiraxmaan oo ayadana jawaab soo siisay fanaanada Qadra Saliimo. Waxaa lagu wadaa fanaanada Hodan Cabdiraxmaan inay show ku qabsato Somaliland gobolo ka tirsan sida caasimada Hargeysa iyo Boorama iyo gobolo ka tirsan Somaliland. Fanaanada Hodan Cabdiraxmaan ayaa ka soo degi doonta garoonka diyaaradaha ee Djibouti si ay halkaasi ugu soo gaarto magaalada Hargeysa. Sida la sheegay, dalka Djibouti waxaa ku sugaya Hodan Cabdiraxmaan fanaaniin ka tirsan kooxda xidigaha geeska ee asxaab dhow ay yihiin Mursal Muuse si ay u soo dhaweeyaan fanaanada Hodan Cabdiraxmaan si ay u keenaan magaalada Hargeysa. Intaasi ayaa ku soo gabagabeynaa barnaamijkeeni falanqaynta fanka aan ku soo qaadanaynay fanaanada Hodan Cabdiraxmaan oo ku soo wajahan magaalada Hargeysa si ay halkaasi raaligelin u siiso seegeeda Mursal Muuse.